dowladda federaalka Soomaaliya ayaa mar kale ka hadashay xiriirka gaarka ah ee ay sameysteen Somaliland iyo Taiwan kuwaasi oo muddooyinkii u dambeeyay qaaday tallaabooyin ay ku horumarinayaan xiriirka labada dhinac. danjiraha Soomaaliya oo fadhiya Shiinaha Ambassador Cawaale Cali kulana oo ka hadlay dhaqdhaqaaqyada labada dhinac iyo xiriirkooda ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay cambaaraynayso sida Taiwan ay ula dhaqmayso Somaliland iyo wadahadallada u bilaabmay. Cawaale ayaa shaaca ka qaaday in ay mar waliba u taagan yihiin ilaalinta madax-bannaanida qaranka Soomaaliya iyo sidoo kale midnimada dhuleed ee Soomaaliya. wuxuu cambaaraynayaa qaabka ay Taiwan ula dhaqanto Somaliland waxaana mar walba ilaalin doona madax-bannaanida qaranka Soomaaliya iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya hadday tahay Taiwan ama cid kale, ayuu yiri safiirka Soomaaliya u fadhiya Shiinaha. sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in Taiwan ay u aqoonsan yihiin gobol ka mid ah Shiinaha isla markaana tallaabooyinka qaadi horseedayso xasilooni darro ka dhacda gobolka. habka Taiwan waa mid aad looga naxo marka la eego macno ahaan sababtoo ah waxay abuuraysaa xasilooni darro ka dhacda waqooyiga Soomaaliya iyo xasilooni darro ka dhacda gobolka iyadoo la samaysanaysa xiriir diblomaasiyadeed gobol gooni isu taag ayuu yiri si raaciyay danjira Cawaale. dhinaca kale safiirka ayaa waxa uu ka horyimid heshiis kheyraad wadaag ah ee ay galeen Somaliland iyo Taiwan wuxuuna ku tilmaamay in uu yahay mid waxba kama jiraan ah. safiirka ayaa sidoo kale xusay in aysan ogolaan doonin in Taiwan ama cid kasta oo isku dayda in ay dhacdo kheyraadka Soomaaliya iyagoo adeegsanaya heshiisyo been abuur ah. Somaliland iyo Taiwan ayaa sanadihii ugu dambeeyay xoojiyay xiriirkooda waxayna labada dhinac gaareen heshiisyo dhowr ah walow Soomaaliya iyo Shiinaha ay ka horyimaadeen tallaabooyinka ay qaadeen labada dhinac gaar ahaan xiriirka tooska ah ee ay sameysteen.